وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان الحكيم ويلكيس مركو لدار معي فيري وهو يعظه أمر مسينا وحوليه يا بني لا تشرك بالله إله أشرك يري إن الشرك لظلم عظيم. شرك واويه qof hadduu shirki uu ku dhaco camalkiisa oo dhan wuu burayaa. lain ashrakta la yaxbatanna camaluk wala takunanna min alkhasiriin. ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. qodobka oo u dambeeya waxaa waaye nasiixa. qofka muslimka ah qofka kale waxaa la rabaa inuu u naseexeeyo. naseexadu waa la isku leeyahay, laakiin qaabka loo naseexaynayo see waayo. marka waxaad arkaysaa adoo dad aad ku dhex jirtid ama meel aad fadhido qof imaanayo wuxuu ku leeyahay saan isaan waayo, ani runtan kuu sheega walaalkaaga ahay waa kuwaanina waxaas ka jaw ku leeyahay. kaas wax kuuma sheegin uu ku ceebay. imaamu shaafici wuxuu leeyahay nasiixa fi mala'in fadiixa. haddaad qofku waxa aad u sheegaysid waxaa la rabaa qofku wado banaanka la istaag, laakiin dad hortooda haddii qofku waxaad ugu sheegtid ma kaa qaadanayo. taas marka waxaa waaye fadeexo waaye. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma waalmawcidati alxasana. ugu wacdahay waddada, laakiin maxaa la adeegsanayaa bilxikma waalmawcidati alxasana. marka naseexada marka waxaa la rabaa adiga qofka walaalka ah meel gooni ah la gal. haddii laakiin adigaa dhahday saa maxaad u yeeshay, saas waa qaldan tahay, ama waxaa waay qofka masaajidka soo galay adiga waxaa waay sarwaalkaa waa dheer yahay, garkaa waa xeeran yahay, adiga diinta waxaa waay salaadaha ma imaado, ama gabala aragtid xijaab ma qaadatid, adiga saasaa tahay. qofka marka qaabkaas wax ma la isu sheego ikhwaani. qaabka waxaa la rabaa in waddaa la maraa. waddada oo toosan waxaa waaye in qofka meel la istaagtid ama u wacdid ama balanso. qof haddii oo adig waxa aad u sheegtid oo meel gooni ah oo adigaa dhahdid waxaas iska ilaali waa kuu naseexaynaya, wallahi qofkaas wuu qaadanaya. laakiin annaga waxaa naga maqan usluubu dacwa, asaaliibu dacwa, qaabka dacwada loo gudbiyo, qaabka wax loo sheego. haddii laakiin oo adiga aad soo boodid oo hal mare qofkii adiga hadal aad ku tuurtid lama rabo. waxaa la rabaa in dacwada iyo usluubka la ilaaliyo iyo anshacaga. marka ikhwaani kelimada kolley waa idinku dheeraya umalaynaa. waxaa la rabaa in aan ilaalsano diinteena. qiyaamo markii la tago ma lagu dhahay qabiil hebel maa tahay, adduunkii maxaad soo samaysay, maxaad soo qaadatay, maxaad soo dhisatay, laguma weydinayo, camalkaagaa lagu weydinayo bas. haddii maanta qabiilaa u dagaalantid, haddii maanta adiga waxaa waaye lagaa keli lahay dadka muslimiinta ah, haddii maanta muslimiinta adiga maanta daba taagan tahay, adiga adduunkan inta la jooga waa mucayin oo wakti waayo. maalin waxaad arkaysaa iyadoo leeyahay hebel waa dhintay, ilaahay u naxariistaye qabriga hana laga geeyo. wallahi haddii aad ogaan lahayd dadki markii qabrigaaga korkiis markii la taagan yahay, qabriga markii saan lagugu gadi waa lasoo kala cararaa, cid kula joogaysa malaha. marka inta qabrigaaga aan lagu geynin maxaa la rabaa in camal fiican adiga aad samaysatid, in rabbigaaga aad raali gelisaa la rabaa. ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay faman kaana yarjuu liqaa'a rabbi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. qofkii rabo inuu rabbigiisa la kulmo falyacmal camalan saalixan, camal wanaagsan aa la rabaa. aya camal ma aha camalka adiga aad samaynaysin, waxaa la rabaa camal oo qur-aanka iyo sunnada waafaqsan. dad badanaa camal lala soo celinaya. waxaa la rabaa
hadda wax la sixi karaa hadda adduunka aad joogtaa wax kasto shareecadu u bandhig waxaan qur-aanka muxuu ku dhahay sunnada maxay dhahday ijmaacu lumma culimada maxay ka dhaheen miisaanka hadda saar يكون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لك يا إخواني وحاربها هي إن ديد أن إلى السنة أضل دين لا وقع إلهي هرتي ستاقين دين توالبو قدري ما أنت مركب قربها إيوه لوض إبادة دين هذا كلك